1.6 ama 1.6 bilyan oo US dollar ayaa xawilaad ahaan ku soo gashay waddanka Soomaaliya sanad walba. Lacagtaas inta badan waxay ka timaadaa dadka qurbaha jira oo u soo diraya dadka ehelkoodii ah waddankii jooga. Lacagta la dirayay xawilaadaha caqabada ayaa ka jira wadamadan Yurubta ama Westernka oo lacagaha inta badan ay ka yimaadaan sida Mareykanka, Canada iyo Australia iyo UK dan jooga Yurubta kaleeto. Soomaaliya xawilaadaha Soomaaliya dib weyn ayay ku qabaan. laysanadii ayaa lagala noqday, qaarkood laysanada restricted ay haystaan aad u xadidan. Waxa kaloo ka sii daranba waxaa la diiday bangiyada inay la macaamilaan xawaaladaha Soomaaliya ayagoo waxyaalo badan marmarsiyo ama ka dhiganaya oo qiil u raadinaya dawlad la'aanta ka jirta iyo iyagoo dhahaya waxa loo isticmaali karaa waxyaalo aan haboonayn. Marka caqabadahaas waxay keentay inay lacagihii xawaaladaha Soomaaliya ku khasabto in lacagtii cash ku qaadaan sida warka ku hayo. Lacagta markii la soo ururiyo xawaaladaha qaarkood waxay sameeyaan diyaaradda iyo qof la raaca oo waxaa la geeyaa Dubai iyo meelahaas oo kaleeto ayaa cash ahaan lagu geeyaa. taa waa caqabad weyn adoo lacag cash oo tiro badan diyaarad saaraya riskigeedu aad ayuu badan yahay in laga dhaco inay kaalunto wax kasta dhici kara. Hadaba sharci laysan haysta ku qaadi karta qaarkood ma haystaan wadamada qaarkood dad badan oo xawaalad si tuuganimo ku diraya ayaa arkaysa oo lacag dadkii hadhow meel ay geeyaan ama wadankii dibadda uga saaran ay aad uga adag tahay. Waxa kaloo jirta caqabad ah in wadanka Soomaaliya lacag laga soo diro oo qurbaha loo soo diro ama Afrika dhexdeeda la saga diro ama Asia loo diro ayadana caqabad weyn ayaa ka jirta way adag tahay. Waxa kaloo jirta iyadoo la dollar shortage oo dollarka ay marar qaarkood yaraado. Soomaaliya kaliya ma wadamada Kenya oo kale ayaa ka cabanay maal dhowto in dollar yaraan ay jirto. Dawladda xataa wadankii Central Bank-ga dhexe uu dollar heli karin. Waxa kaloo jira caqabadaha kale jira waxa weeye in xoolihii dollarkii hadda la dirayo oo kale inay shirkado ama hal shirkad ama laba shirkad oo kale ay gacanta ku hayaan. wax kasta dhici kara uma rajeynayna inay balaayo dhacdo laakiin waxa fiican inaad option badan haysatid oo hal meel aad ukumaada ku wada shubanin lacagta Soomaaliya haynteedii iyo kala gudbinteedii waxooda dhan waxa haya shirkad ama laba shirkadood ugu badnaan. Arintaas ayadana khatar keeni karta. Marka xalka dhow muxuu ila muuqdaa waxa weeye in hadda waayadan waxa soo badanaysa la isticmaalo waxa la USDT ama stable coin macnaheedu waxa weeye lacag dollar ama digital dollar. had already digital dollar Soomaaliya way isticmaashaa lacagtan mobilka lagu dirayo waa digital dollar laakiin midda waxay kaga duwan tahay mid international oo mid adu app inta soo degsatid aad furiisaysan kartid. Stable coin-ka waa lacag $1 weligeed joogta sidii $100 haday istay $100 ayay joogaysaa ma ahan sida cryptocurrency kaleeto ama bitcoin oo qiimahooda laga yaabo inay mar kor u kacdo mar hoos u dhacdo. Waxa kale oo dadka Soomaaliya u sheegaya shacabka iyo shirkadaha labadaba inay ku baraarugaan lacagta USDT-da ama stable coin inay ku baraarugaan ay fahmaan ay tahay lacag xawli ku socota wadamada Turkiga kale aad tagtid waxa ku arkaysaa meelo badan dad badan oo sarifaya ama dukaamada ugu qoranta waxaan sarifnaa lacagta stable coin-ka waxa ugu caansan USDT sababtaas ayaan ku soo celcelinaya USDT waa mid ugu caansan Tether shirkadda leeyahay ayaa soo saarta USDC mid laha iyadana way jirtaa. Marka ganacsiga kale waxay uga faa'iideysan kartaa meeshii ay xawlaad sii mar lahayd oo qolo orana xawlaadii wadanka kuma taalo ay dhibaato iyo caqabad kala kulmi lahayd. Qofkii wadanka jooga ama kamaniga ay xiriir kala lahayd ayay toos u weydiisanaysaa inuu u soo diro address-keeda address wax la yiraahdo lagu diraa walletkiisa ugu diraysaa qofkii ama shirkadda ayay toos ugu dhacaysaa. Waxa kale oo qofka caadiga uga faa'iideysan karaa inuu online wax uga gato oo meelo badan oo hadda lacagta stable coin-ta wax loo gadan kara ayaa jira. Marka faa'iidadaas uu leeyahay inaad adigu haysatid lacagtaadii passwordkiisa haysatid haddii shirkadaha hadda localka ah aan ku leeyahay hal shirkad ama laba shirkad ayaa lacagtii maamula midkood uu khawada ka baxo kaleeto weli lacagtaada waa haystaa oo adaa wixii furiisa haysta. Marka waa option soo kordhay anigu kuma leeyahay way ka fiican yihiin kuwa Soomaalida hadda isticmaashaan oo shaah ku gadataan ayada laftigeeda shaah lagu gadan karaa laakiin waa option qof u soo siyaaday haddii dad option badan haystid waa chance kuna waa si fiican yahay. Marka aabo badan ayaa jira haddaad rabtid inaad soo gadatid oo kaleeto waxaa ka soo gadan kartaa Binance iyo Coinbase iyo xataa Revolut hadda UK kale haddaad joogtid qof walba UK joog badanaaba ama Europe jooga Revolut waa isticmaalaa asaga ayaa iibiyay USDT marka $100 baad diraysaa dollar ayuu kugu bedelayaa bedelitaankaas waa free wax lacag kaaga qaadanayo. Markaad soo gadatid rabtid inaad dirtid qofka wadankii jooga dirto oo kaleeto wuxuu soo degsanayaa Aqua wallet ama aan ka soo sheekay oo adigu aad haysatid freeze adigu haysatid oo qof kale uu kula haysan kaas ayaa address-ki siinaysa wallet-kaas ku leedahay qofkii oo Europe jooga ayaa $100 straight kugu soo diraya account-ka ay toos ugu soo dhacaysa xawlaadna ma soo maray toos ay labada qof lacag isugu diri karaan.
marka soo diritaanka laftigiisu waa dhaqso waa very fast isla markii waa helaysaa fiiguna aad ay u yaryahay marka taas waa xilliga dhow oo ah in la isticmaalo stable coin oo ku ah macnaheedu yahay dollarkii oo digital laakiin saa hore iga barateen anu dollarka dhanba waa kasoo horjeedaa oo waa lacag ku dhisan debt waxa weeye interest bay ku dhisan tahay iyo riba marka in laga guuro ayaan dadka taageersanaya ka mid ahay laakiin maadaama dadkii badankoodii hadda wadankii dhan laga wada isticmaalayo xal kaloo hadda degdega oo muuqdan uusan jirin in sababtaas ayaan idinkugu sheegaya USDT iyo stable coin laakiin waxaan anigu aan happy ku ahay ma ahan halka dhow iyo midka dheer labada waxaan u arkaa inay tahay bitcoin waa lacag aad u adag aan cidna maamulin tether iyo hadda stable coin kambaniyada maamula laakiin bitcoin cidna kaama xigto adiga haysanaya daafuraheeda haystid oo si private u haystid qof kaa qaadi kara iyo dowlad kaa xanibi karta ma lahan laakiin cilada kaliya bitcoin hadda leedahay waxa weeye inuu qiimuhu mar kore hoos kaco oo qof maskiin $100 loo soo diray inay $10 qiimihii hoos uga soo dhaco oo markaas uu rabay inuu ciyaalkiisa wax uga gato way ku adagtaa qofkaas oo kaleeto laakiin markii bitcoin stable noqoto oo market capkeedu kordho oo 10 trillion meelaha ay gaarto waxay noqonaysaa lacag stable oo hadda kor kacani kor hoos dhacana wuu ka yaraanaya wuu yara dadka badanaa lacagta u soo wada dhacda kulli isla markiiba ma isticmaalaan lacag badan ayaa kambaniyasha hayaan lacag badan ayaa shirkadaha telefoonadu hayaan lacag badan ayaa qof loo dhiibtaa maalinta waxa arkay UK waxa ka dhacday qof lacag loo dhiibtay oo lacagta la fakaday marka intaad lacagtii sariirtaada hoosteeda ma gashan kartid oo tuuga ayaa dhici kara way kaa guban kartaa biyada qaadi kara dhibaatooyin badan bay leedahay marka bitcoin midkii hadda ku fiican tahay waxa weeye inaad saving ahaan inaad lacagta ku shubataan bitcoin dhowr jeer hore ka soo sheekay waxaa jira waxyaalo horumar aad u badan ayay sameynaysaa dhinaca maalinlaha in wax lagu kalgato waxaa jira wax la dhaho lightning oo bitcoin korkeeda ku dhisan oo shaaha ku gadan kartid waxaa kaloo jira wax la e-cash oo hadda dusha bitcoin ku dhisan maadaama bitcoin ay maanta dad badan ay oo lacagta degdeg ugu baahan ay dib ku tahay inay qiimahooda mar kor u kaco mar hoos ugu dhaco sababtaas ayaan maanta videogan ugu soo bandhigay in USDT ama stable coin wax la dhaho uu yahay option kaleeto ama fursad kaleeto ay dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada inay bartaan kana faa'iideystaan aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh